Assalaamu calaykum asxaabta ku xidhan Karaama Channel waa mar kale iyo muuqaaladeeni xiisaha lahaa inta aanan u guda gelin waxaan jeclaa program yar inaan ka horeysiyo oo waxa maasha Allah waynu ciidnay oo si fiican ayuu ciidnay Ramadaan oo ay noo soo dhamaatay waynu ka faa'iideysanay marka waxaan jeclaystay inaan yar xasuusiyo Shawaal naha laga faa'iideysto khayrku kaliya kuma eeknayn Ramadaan haddii aad raacisid 6 cisho oo Shawaal aad ka soontid inta ugu horeysa xageeda dambe bishan inuu ku jirno dhexdeeda week 2 cisho ka soontid waa ay kugu filan tahay 6 cisho oo kaliya aad ka soontid bishan waxa la mid noqonaysa qof sanadka oo dhan soomana haddii aad soo soontay bishii Ramadaan oo aad soo dhameysatay bishan 6 cisho ka raacisay ka faa'iideysta Stewart marka uu guriga joogo waxa uu dareemaa cabsi aad u badan iyo in la soo weerarayo markan waxa uu suurta gashay inuu sawiro ama muuqaal ka qaado waxyaabo aad iyo aad u cabsi badan una la yaab badan kanana cabsiyay waana kuwan muuqaaladiisii I'm gonna turn on the light. All right. Hello. Hello. I heard something. Nothing. Is anyone there? Whoa, Jesus! alaabta guriga taalay mid kamid ah ayaa si la yaab leh u dhaqaaqday iyadoo aan cid ay dhaqaajisay aysan jirin mar kale ayaa uu qaaday Stewart muuqaal kale kaas oo aad iyo aad u cabsi I heard badnaa some noises again. Hello? No! markii hore waxa uu maqlayay codad uu fahmi la'aa laakiin markii dambe caadi ayaaba loo soo hor istaagay taas oo aad uga cabsisay Stewart waxaaban moodaa inuu markan ismuujinayo wixii haddii aad caadi ugu fiirsatid waad arki kartaa sanadii 2016 kliibkan yar ayaa waxaa qaaday kaamiradaha ku xidhnaa guryaha mid ka mid ah halkan wadadu waa ay madneyd waqti dambe oo habeenimo ah weeyaan wadada waxaa soo maray wax la garan waayay ilaa iyo haddana lama garanayo tafsiirna looma hayo waxaasi waxa uu ahaa oday gaboobay ayaa uu eegyahay iyo waxaan dadka qaarba wax ayaaba ay ku tilmaamaan laakiin tafsiir sax ah weli looma hayo waxaan waqtiga dambe soconaya dhalinyaraha ayaa soo galay guri aad iyo aad looga cabsado iyagu markii hore guriga waa ay iskaga baashaalayeen laakiin markii dambe wax aad iyo aad uga cabsiyay ayaa ay la kulmeen qolalka mid ka mid ah waxaa ka soo muuqday jismi la yaab leh baashaalkiina wuxuu isu bedelay qaylo iyo naxdin David waxa uu joogay gurigiisa waxa uu daawanayay telefishankiisa kadib waa uu seexday oo waa uu ka kacay fadhiga kadib waxa dhacday arrin aad iyo aad u la yaab badan waxa uu soo noqday TV-gii uu baqtiyay oo shidmay uu yaabay kadib waxa uu dib u raacay kaameradii ku xidhnayd ee qolka waxa uu arkay telefishanka oo kaligiis isshidaya talayaab kale ayaa waxa ay ahayd remote-kana waxa uu yaalaa fadhiga ag yaala TV-ga ama telefishanka iyadoon cidna aysan haysan